galab wanaagsan waxaa mar dhow inoo soo ilaaday shirkii golaha wasiirada khamiislaha ahaa oo si internet ku dhacay oo daadihinaya ra'iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali kheyre waxaa warbixin waafi ah laga dhageystay wasaaradda amniga oo noo soo bandhigtay amniga guud ee wadanka meesha uu marayo iyo wanaagga ay ka sameeyeen dadaaladii ay galeen waxaa kadib la dhageystay wasaaradda caafimaadka oo warbixin guud naga siisay meesha ay marayso COVID-19 iyo sidii agabkii ay Soomaaliya heshay dhawaanahan loo soo diray lagu qeybiyay maamul goboleedyada iyo degmooyinka Soomaaliyeed ilaa hadda 22 degmo ayaa qalab loo diray berito iyo saadaman waxa la rajeynayaa ilaa 4 degmo kale in ayagana la gaarsiin doono agabka ay Soomaaliya heshay kadib waxaa warbixin kooban laga dhageystay wasiirka maaliyadda oo noo sharaxay SMP-ga ideen cafinta Soomaaliyeed meesha ay marayso iyo waxyaalaha isku bedeli doonto SMP waxaa loo bixiyay hadda wixii ka dambeeyay extended credit facility ay maamuli doonto wasaaradda maaliyadda ay kula jiraan 9 wasaaradood iyo bangiga dhexe Soomaaliyeed kadib waxaa wasaaradda cadaaladda soo bandhigtay in ay la dagaalanka musuqmaasuqa conventionka UN-ka iyo conventionka African Union-ka ee Soomaaliya aysan ka mid ahayn ilaa hadda in sida ugu degdegsiyaha badan lagu saxiixo golaha wasiiradan waxay ku ansixiyeen si aqlabiyad leh kadib waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada guud ee la dagaalanka musuqa 2020 2023 ay wasaaradda soo bandhigtay oo asagana sidaas kale si aqlabiyad lagu ansixiyay kadib waxaa wasiirada ay ka doodeen arrimaha mashaariicda Soomaaliya imaanayso iyo sida ay wadanka baahidiisa ay ka jirto loogu qaybin lahaa waxaana go'aan guud lagu gaaray in ay wax kasto mashaariic Soomaaliya loo soo furo ay haddii wixii ka dambeeyay ay noqoto go'aan golo wasiiradeed iyadoo lagu saleynayo baahida ka jirta meelaha kala duwan ee Soomaaliyeed